እኔ ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቤ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ ስሰየም golaha wakiilada shacabka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ayaa waxay ansixiyeen in Dr. Abiy Ahmed uu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya kadib markii golaha xisbiga EPRDF uu doortay Dr. Abiy Ahmed gudoomiyaha xisbiga EPRDF waxaana kulankan ay yeesheen golaha wakiilada shacabka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ay ku ansixiyeen Dr. Abiy Ahmed inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya kadib markii madaxa xarunta dhexe xisbiga EPRDF uu soo dhigay taariikh nololeedkiisii iyo shaqooyinkii kala duwan ee uu soo qabtay iyo sida ka go'naanshaha leh ee golaha xisbiga EPRDF ay ku doorteen Dr. Abiy Ahmed gudoomiyaha xisbiga EPRDF waxaana madaxa xarunta dhexe xisbiga EPRDF Shafar Shugude uu ka codsaday golaha wakiilada shacabka in Dr. Abiy Ahmed ay u ansixiyaan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya inta kadib afayeenka baarlamaanka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya oo kulankan shir gudoominaya ay yeesheen golaha wakiilada shacabka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ayaa golaha wakiilada shacabka ka codsaday inay ku muujiyaan sacab ansixinta ra'iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed በምክር ቤቱ አሰራርና አባላት ስነ ምግባር ደንብ አንቀጽ 107 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት የቀረበውን እጩ ጠቅላይ ሚኒስትር ምክር ቤቱ በጭብጨባ እንዲያጸድቅልኝ ጠይቃለሁ። hanaanka shaqeed ee xubnaha golaha wakiilada shacabka qodobkiisa 107 firqadiisa saddexaad sida ku cad ee loo soo dhigay ra'iisul wasaaraha cusub waxaan ka codsanayaa golaha sharafta leh inay sacab ku ansixiyaan ra'iisul wasaaraha cusub ምክር ቤቱ በጭብጨባ እንዲያጸድቅልኝ ጠይቃለሁ። inta kadib madaxweynaha maxkamadda guud mudane Danye Malaku ayaa golaha wakiilada shacabka hortooda ku dhaariyay ra'iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed እኔ ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቤ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ ስሰየም ለሕገ መንግሥቱ ታማኝ በመሆን ከሀገሪቱና ከሕዝቡ የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ሕግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። anigoo ah Dr. Abiy Ahmed waxaan maanta anigoo hortaagan golaha wakiilada shacabka ee igmaday ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya waxaan ballan qaadayaa ana u hoggaansan nidaamka dastuurka inaan ka soo baxayo xilka iyo waajibaadka iga saaran waddanka iyo shacabka inaan ugu adeegayo si cadcadaan leh ka go'naansho leh iyo sidoo kale anoo sal ka dhiganaya nidaamka dastuuriga ah iyo dastuurkaba inaan shaqadayda gudan doono ayaan ballan qaadayaa sharciga lama fasal qaal gabadho inta kadib ra'iisul wasaarihii hore ee dalka mudane Haile Mariam Desalegn ayaa xilka ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyadoo ra'iisul wasaarihii hore iyo ra'iisul wasaaraha cusubna ay si farxad leh isku qaan qaadeen bogana isa saareen
intaa kadib ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya dr abiy axmed ayaa golaha wakiilada shacabka hortooda ka soo jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa isagoona ballan qaaday inuu sii adkayn doono nidaamka federaalisimka ah wada noolaanshaha iyo isqadarinta iyo sii xoojinta korriinka dhaqaale ee labagoodlaha ah ee dalkan etoobiya ku tallaabsaday sanooyinkii u dambeeyey